kula wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobadaan idinku hayana waxaa ka mid ah Itoobiya oo dacwado argagixisay ku soo ogtay Jawaar Maxamed iyo siyaasiyiin kale kuwaasi oo lagu eedeeyay inay horinayaan rabshado isir ku salaysan oo dalkaasi ka dhacay tirakoobka dadka Mareykanka oo heer gabagaba ah maraya Soomaalida Mareykanka oo lagu tilmaamay kuwa aan si wanaagsan uga qayb galaynin tirakoobka socda qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay Itoobiya ayaa dambiyo isugu jira argagixiso iyo horin rabshado ay ku soo ogtay siyaasiyiin ay ka mid yihiin Jawaar Maxamed iyo Bekele Garba talabadaasi ayaa lagu tilmaamay inay soo horin karto xiisadaha ka taagan gobolka Oromada ee xasaraduhu ay ka jiraan eedeymaha oo keeni kara xabsi daayin ayaa la xiriira rashwadihii ka dhashay dil toogasho ah oo bishii Juun lagu dilay Hachalu Hundessa oo ahaa heesaa caan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada kaasi oo fankiisa ku soo bandhigi jiray faquuqida siyaasadeed iyo dhaqaale ee Oromada Jawaar iyo Bekele ayaa ka mid ahaa in ka badan 9,000 oo qof oo la xiray dilkii fanaanka kadib talabadani oo kicisay dhaleecayn ah in Abiy Ahmed uu adeegsanayo rabshadaha si uu si aamusiyo kuwa ay siyaasadda isku diidan yihiin iyo dadka isaga dhaleeceeya xafiiska xiriiryaha guud ayaa qoraal uu sabtidii ku soo daabacay Facebook waxa uu ku shaaciyay dacwadaha ka dhanka 24 kan eedaysane xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa waxa uu sheegay in dadka maxkamad la horgeyn doono maalinta Isniinta eedaha ayaa waxa kamid ah isku daya in la kiciyo rabshado salka ku haya qowmiyad iyo diin si la isaga horkeeno muwaadiniinta eedaysanayaasha kale ayaa waxa kamid ah dhowr qof oo caan ah oo dhaliila Abiy Ahmed oo ku nool dalka dibadiisa sida dhaqdhaqaaqaha caanka ee reer Oromo Tesgaye Ragasa iyo nin olog la ahaan jiray Abiy Ahmed oo isku bedelay mucaarad ninkaasi oo lagu magacaabo Berhana Maskal Abebe tirakoobka lagu sameynayo dadka Mareykanka ayaa haatan waxa uu marayaa heer gabagaba iyadoo 10kii sanaba mar la tirakoobo dadka Mareykanka Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka ayaa waxa laga cabsanayaa in aanay tirakoobka xilligan si wanaagsan uga qayb qaadanaynin waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota haatan ay wadaan olole dadka lagu dhiirigelinayo inay istirakoobaan hadaba arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Jeelani Xuseen oo kamid ah hay'adda CARE ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta kana tirsan madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota horta waxa weeyaan tirakoobkii Mareykanka uu soo gabagaboonaya boqolkiiba hadda bishan 30 ku eegaya September runtiina waxaan aragnay tirakoobkii hadda la hayo ee dhulal ama area jirta wali la arkayo inay boqolkiiba 50 oo kale soo xaroodeen areada hadda arkana ee boqolkiiba 50 soo xaroodeen Minnesota oo dhan waxa weeyaan Cedar oo kale aad iyo aad buu tirakoobku u yar yahay waa meelaha ugu liita state of Minnesota runtii aan waxaan dhihi kala faham la'aan dadkii ma fahmayaan waraaqdii waa la soo dirayaa dhaqaale xumana dawladda federaalka geliyay gaar ahaan sidii dadka caawin lahaayeen maaragtay ka shaqeyn la arrinkan wuu yar yahay sanadkan iyo cudurkan iyo maaragtay xayiraanta dadka la iska yahay ayaa runtii sabab ka dhigaysa laakiin dadkeena Soomaalida waxaan aragnaa mar walba xitaa waliba Cedar degan in boqolkiiba 90 ay ka qayb qaataan doorashooyinka oo walibana la arag sababta waxa weeyaan dad dan yaro saas oo kale sida meeshu degan waqtiga waa la geliyay dadkuna way qiimeeyaan marka waxaan u baahanaa hadda ololo inaan sameeyno waliba censusku wuu fudud yahay guriga lagu sameyn karaa internetka lagu sameyn karaa wuu fudud yahay waalidku hadduu xitaa si fiican u fahmayaan dhalinyarta guriga degan ama jaarka intuu weydiiyo ayaa si yaro fudud loogu dhameystiraya maxaa adinka jaaliyadda madaxdoodii baa tihiin maxaa idii qorshe ah in maalmahan kooban ee ka dhiman aad dadka u qabataan qofkii aan ogeyn haddii aan qof ogeyn wacyigelin talaabada aad qaadaysan maxay noqonaysaa horta wacyigelin waan rabnaa inay dadku ogaadaan oo waxaan yahay wax degdega oo muhiim ah oo loo baahan yahay qof walbaba inuu ka qayb qaato xitaa hadduu qofku buuxiyay waxaan rabnaa inuu jaarkii la hadlo waxaan rabnaa dadka kale ee uu ag degan yahay inuu waco dadku xitaa u jaarka yahay qaraabada inuu waco oo qof walba la isdiiwaangeliyo la maaragtay la istirkoobo diiwaangelinta maxaa faa'iido ku jira dadku isweydiin karaa qaarkood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan iga tag isdiiwaangelin maayo waxaan maxaa laga faa'iidaya marka faa'iidada ku jirta si qofku u kaco uga faa'iideysto inuu isdiiwaangeliyo maxay horta awalan waxa weeyaan maalgelinta ama dhaqaalaha dawladda federaalka ay u qaybiso degmooyinka Mareykanka oo dhan wuxuu ku xiran tirkoob
tirakoobka hadduu yaraado dhaqaalaha u iman lahaa shacabkeena degan Cedar iyo shacabka degan Minnesota oo dhan baa yaraanaya waxaa kaloo laga jarayaa xildhibaan dhan oo noo matali lahaa oo inaga ma aragtay awoodeena iyo codkeena u qaadi lahaa Congress-ka waxyaabo badan marka laakiin waxaan dhihi lahaa gaar ahaan Soomaalida waxaan dhihi karaa hadda waxaan dadkeenu aad iyo aad uga faa'iideysadaan barnaamijyo ku saabsan ama ka imanaya dawladda federaalka oo loo dhisay ama ku xidhan tirakoobkii la sameeyey sanadkii 2010 marka haddii ay hoos u dhacaan hadda waxaan haysano iyo wixii horeba hoos bay u sii dhacay marka hawl guriyaha iskuulada home care-ada caafimaadka kullu way ku wada xiran yihiin waxaan kaloo maqlay xataa dib u qaabaynta magaalada qaabka loo doorashada inay ku xiran tahay 10kii sano la soo dhaafay ka bacdi waayadii magaalada district dib u qaabayn lagu sameeyay kursi ay Soomaalidu leedahana uu soo baxay haddii dadku ay codeen waayaan marka haddii dadku si diiwaan gelin waayaan ma laga yaabaa in dib u qaabayn kale la sameeyo oo halkaas codkii Soomaalidu ku lumi karo aad iyo aad waa waxyaabo hadda la hubaba la leeyahay tirakoobka sanad Minnesota haddii uu hoos u dhaco waxa horta awalan aan waayana kursi Congress-ka fariista marka laga soo daadegana kuraasidii degmooyinka amba city-ga ha noqdaan state-ka ha noqdaan Minnesota kullu iyagana dib baa loo qorayaa marka calaamadeedsaasina waxa inta badan dhaca in la yareeyo oo amba la ballaadhiyo marka waxay noqonaysaa xitaa codkii Soomaalida haddii ku lahayn degmad gooniya in la ballaadhiyo dad badan oo kale soo galaan laba qof oo musharaxana ay kursiga ku dartamaan oo ay noqonayso marka in xitaa la waayo codkii ugu dambeyntii maxaa dad wahaynaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya qaasatan kuwa reer Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka dadka Soomaaliyeed aad ku oranaysaa xilligan ay uga qayb qaataan tirakoobka horta awal waxaan dhahayaa wali baan rabaa si gaar ah inaan u sheego dhalinyarteena dadkeena aqoonyaanka dadkeena maaragtay runtii turjumaanada waxay doontaan qofka walba oo maanta isdhihi kara maanta tirakoobka waxbaad ka qaban kartaa ayaan u baahanahay dadkaasi waxaan rabnaa inay dadka kala jaalida wacaan dad waayeelaa jira dad luqadda fahmeen baa jira dad maaragtay runtii u yar baahan caawimaad yaraa jira marka dadkeenan inaan iscaawino weeyaan haddii cid noo soo socota ma jirto dadkii ka shaqaynay tirakoobka sanadka wuu yar yahay marka waxaan runtii rabaa 2 week baa haray in runtii aan dadaalno oo dhalinyarteena iyo aqoonyahankeena dadkeena aan ka qayb qaadano sidii maaragtay aan u dhameystireen xaafadaan deganna waliba dadkeena waxay ku fiican yihiin inta badan apartmentan deganna hal apartment waxa laga yaabaa 4 saacadood inaad ku dhameystirtid haddaad ishil qaadid dhalinyarteena wali xaafadaha deganna high school ama xitaa middle school gaaray application way buuxin karaan iyagoo waalidkii ag jooga oo ay su'aalihiis weydiinayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu haweeney u soo magacaabi doono kursigii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd 9 garsoore ee maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka oo maalintii Jimcaha ahayd ku geeriyootay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka. Trump ayaa magaalada Fayetteville ee gobolka North Carolina waxa uu ka sheegay inuu toddobaadka soo socda soo magacaabi doono haweeneyda buuxin doonta booska bannaan ee maxkamadda sare ee Mareykanka. waxaan u malaynayaa inay noqon doonto qof dumar ah sababtoo ah dhab ahaantii dumarka ayaan ka jeclahay ragga ayuu yiri madaxweyne Trump. Ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee garsoore ka noqota maxkamadda sare ayaa waxay ku dhimatay gurigeeda oo ku yaala caasimadda Washington iyadoo ay qoyskeedu ku hareereysnaayeen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda sare. Ginsburg waxay da'deedu ahayd 87 jir. qof kasta oo madaxweynuhu soo magacaabo maxkamadda sare ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha sanad وأغلبيتيسا ay leeyihiin jamhuuriyiintu jamhuuriga ayaa haysta 53 mudane halka dimuqraadigu ay ka yihiin 47 mudane ugu dambeyntiina dawladda Greek ayaa xero cusub oo ku meel gaar ah oo ku taala jasiiradda Lesbos waxay u raraysaa kumanaan kun qaxooti ah oo xeradii ay deganaayeen uu dab ka baabi'iyay xeradii hore oo la oran jiray Maria Cam ayaa waxay ku basbeeshay dab ka kacay 9kii bishan September taasi oo sababtay in ka badan 12 kun oo qaxooti ah in ay soo food saarto hoy la'aan qaxootigan ayaa intooda badan ka yimid dalalka Afghanistan, Syria iyo dalal ku yaala Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Dabkaasi cidina waxba kuma aanay noqonin. ilaa iyo 9 kun oo ka mid ah qaxootiga ayaa waxaa la dejiyay teendooyin cusub oo halkaasi ka dhiseen maamulka deegaanka Karatebe oo u dhow dekada Metilina. qaar kale ayaa la dejiyay guryo ay leeyihiin hay'ado aan dawli ahayn. haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa kulan goor dhaweyd soo dhamaaday waxa ay 5 gool iyo 2 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. kooxda Tottenham oo kulankii kan ka horeeyay gurigeeda lagaga soo badiyay
ayaa casharkan ay u dhigtay kooxda Southampton. waxaa macallin ka ahaa ciyaaryahan Son Heung-min, wiilka u dhashay South Korea, waxa uuna dhaliyay 4 gool oo kamid ah 5 ay kooxdu ku badisay. ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka kale u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. habeenkii xalay ahana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay si dirqi uga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United ciyaar adag oo garoonka Emirates ay labadan kooxood ku yeesheen. ciyaaryahan Nketiah oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. macallinkooda Arteta ayaa neefi ka soo fuuqday, waxa uuna weli u xusul duubaya siduu qadka dhexe ee kooxda u soo xoojin lahaa, iyadoo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda sida uu sheegay uu weli xidigo ka raadinayo. kooxda kubadda cagta ee Manchester United gurigeeda ayaa lagu qabtay kadib markii 3-1 lagaga badiyo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay kaga badisay. ciyaaryahan Saha oo mar kamid ah xidigihii kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo macallin Moyes uu ku yiri kooxdan waxba uma gashida ka tag, ayaa goolashaasi 2 kamid ah u dhaliyay. waxaana haatan la isweydiinayaa talow Manchester Saha inay iska dirto markaasi ma ku sacnayd. si kastoo taaba horyaalka wadanka Ingiriiska waxaa hogaanka u haysa kooxda kubadda cagta ee Everton oo ciyaaryahan James Rodriguez oo macallin Ancelotti garoonka keenay uu u muuqdo xidig la'aan meel uu ku soo bandhigo xirfadiisa kubadeed, haatan helay garoonka Goodison Park iyo horyaalka wadanka Ingiriisku in ay yihiin meel xirfadiisa kubadeed aan lagu celin karin. ciyaaryahan Rodriguez ayaa macallinkiisa Ancelotti waxa uu rumaysan yahay inuu yahay xidig si sahlan kubadda u ciyaara markay sheekadu kulushahayna xirfadiisa adeegsada. wahagaag daawadayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha maanta. intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascad iyo dhammaanba bahda qubanaha idila sida iyo nabadgelyo.